dabaaldegyo iyo damaashaad ayaa hadheeyay habeennimadii xalayto guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Masar kadib markii ay ku guuleysteen kooxda kubadda cagta ee dalka Masar inay u gudbaan tartanka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2018 ka furmi doona dalka Ruushka. waa markii koowaad ee Masaaradu soo gaadho heerkan muddo 27 sanadood ah waxaana uga sii horeysay hal mar oo hadda laga joogo 82 sanadood. ciyaarta xalay ahayd mid si weyn loo wada sugayay ayaa markii la gaadhay waqtigeeda waxaa cidloobay suuqyada waaweyn ee magaalada Qaahira. guud ahaan dadweynaha ayaa ku mashquulsanaa daawashada ciyaarta iyo falanqaynteeda. caawa waa habeen taariikhi ah ama waa habeen aan wanaagsanayn, waa sida ay u arkayeen Masaaridu xalay. erayo kale oo alla bari ah ayaa ahaa kuwa ay ku celcelinayaan inkastoo ciyaarta qaybteedii hore kusoo dhamaatay barbardhacna waxay rajo ka qabeen inay ciyaarta qaybteeda dambe isbedeli doonto. daqiiqadii 61 ayuu laacibka kooxda Liverpool Mohamed Salah halbowlana u ahaa kooxda Masaaridu waxa uu keenay goolkii rajada waxaana ruxmay guud ahaan garoonka iyo goobihii kale ee sida tooska loogala socday ciyaarta. الكونغو ما هياش الفرقة كومبو أبدا زي ما أوغندا ما هياش الباندا. الكونغو ما هياش dabaaldegyo ku meel gaara ayaa dhacay inkastoo Masaaridu ay u qaateen inay caawa tahay habeenkii guusha haddana daqiiqadii 18 ayay kooxda kubadda cagta ee dalka Congo waxay keeneen goolkii barbardhac ahaa. markan xaalkii wuu isbedelay guud ahaanna waxa ku habsaday dadkii niyad jab iyo murugo. waxada ayaa kor loogu dhawaaqay weyna si laba jibaarmasa mar kasta. markanse waxa uu helinaya erayo kale oo ay ka mid yihiin Allahu Akbar. inkastoo quus la joogo haddana raja la qaba waqtigu aan weli dhamaanayo ciyaartooyda oo qaarkood oo si gaar ah isha loogu hayo darteed. daqiiqadii 94 oo kamid ah waqtigii dheeraadka ah ee lagu daray ciyaarta ayuu shabaqa ku hubsaday Mohamed Salah goolkiisii labaad noqon doona goolkii guusha. الله الله يا بلاد الله الله يا بلاد الله الله يا بلاد الله الله يا بلاد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله. بكائي هو بكاء الملايين وهو فرحة الناس. dhibcaha ay haystaan ilaa iyo hadda Masaarida ayaa noqonaya 12 dhibcood halka ay ku soo xigto Uganda oo iyaduna haysata 8 dhibcood. sida uu sheegay telefishinka dalka Masar madaxweyne Cabdulfataax Al-Siisi ayaa ballan qaaday in laacib kasta oo xalay ciyaaray la siin doono 1 milyan iyo badh giniga Masaarida. Masaarida ayaa noqonaysa kooxdii labaad ee Afrikaan ee u soo baxda koobka kubadda adduunka iyadoo ay hore 4 jeer ugu guuleysteen koobka kubadda cagta ee qaramada Afrika. dhankiisa goolhayaha Masaarida Cisaam Al-Xadari ayaa isaguna noqon doona haddii uu doorkan ka ciyaaro dalka Ruushka laacibkii ugu da'da weynaa ee abid soo mara koobka kubadda cagta adduunka. Cabdalla Qaalib, SBS TV, magaalada Qaahira.